daawadayaal maanta anagoo ah qayb ka mid ah warbaahinta magaalada Ceerigaabo waxaanu doonaynaa inaanu u kurgalno isla markaasina inaanu wax ka ogaano alaabaha iyo sidoo kale badeecooyinka kala duwan ee meheradaha ganacsiga Ceerigaabo qaarkood lagu iibiyo iyadoo uu waqtigoodu dhacay anagoo suuqa dhex mari doona meheradahana ka iibsan doona adeegyada ay ka mid ka yihiin sharaabada biskuulada iyo sidoo kale waxyaabaha kale ee soft food ama cuntooyinka fudud si aanu dadweynaha ugu soo gudbino waxaan rabaa inaad iga iibisid biskuudo iyo sharaabo biskuudkana waxaad isiisaa maxaa yeelay biskuudada faaradkaaba isi amarku soo kaama ka eego walaalon ku diray biskuudkan aan gacanta ku hayaa waa mid ka mid ah biskuudada lagu iibiyo magaalada Ceerigaabo taariikhda dhicitaanka ee ku qoran waa 20kii bishii 9aad 2023 ilaa haatanna waxa laga iibiyaa bulshada magaalada Ceerigaabo sidoo kale sharaabkan aan gacanta ku hayaa waxa uu dhacay 30kii January 2023 welina waxa lagu iibiyaa meheradaha magaalada Ceerigaabo kuwaasoo kaliya maaha kuwanna waa kuwa ka mid ah sharaabada lagu iibiyo magaalada Ceerigaabo ee dhacay sharaabkan aan gacanta ku hayaa waxa uu dhacay 24kii bishii 2aad 2022 saaxiib waxaad iga iibsaa salool maxaa salolkii waa hayaan waa gartay isbareedka waa labadaas waa imisa salolka waxa weeye 8,000 shilin isbareedka kan waa 5,000 shilin isku imisa 13,000 weeye mar kale ku dhigsan waad ku daraysaa mid ka mid ah meheradaha magaalada Ceerigaabo waxaan ka soo iibsaday saloolkan oo runtii in muddo ah sii dhacsanaa saloolkani dheedkii loogu talagalay iyo xilligii loogu talagalay waxa uu dhaafay muddo 3 bilood ah isagoo xilliga dhicidiisu ay ku beegneed bishii 5aad 2024 imikana waxaanu ku jirnaa bisha 8aad halkaas waxaad ka garanaysaa in meheradaha intooda badan ee magaalada Ceerigaabo lagu iibiyo badeecooyin kala duwan kuwaasoo isla markaasina dadka looga iibinayo iyagoo dhacay sidoo kale sharaabkan aan soo iibsaday waa Sprite waxaan ka iibsaday mid ka mid ah magaalada meheradaha magaalada Ceerigaabo isaga laftarkiisu waxa uu dhacsan yahay muddo 2 sano waxaana la iga iibiyay in uu yahay sharaab uu dheedkiisu cusub yahay sharaabadii maxaad haysaa Sprite-ka iyo energy xabada energy ayaga iibiyo xabad Fanta waxaan gacantayda ku hayaa labada sharaabka sooraha waxaan maanta ka iibsaday mid ka mid ah meheradaha ku yaala gudaha magaalada Ceerigaabo kuwaasoo aan kala kulmay sharaabkan oo ah mid dhacay sharaabkan waa energy waxa uu soo baxay bishii 11aad 2022 waxaana uu dhacay bishii 9aad 2023 ee sanadkii hore sida muuqata sanadkan socda iyo sanadkii hore in ka mid ah sharaabkani waxa qaynayay magaalada Ceerigaabo isla markaana bulshada laga iibinayay waxaan u galeynaa Dr. Dalmar oo ka mid ah dhakhaatiirta gobolka Sanaag si aan wax uga weydiino dhibaatada caafimaad ka ay ku keenaan waxyaalaha dhacay hadii qofku isticmaalo marka waxaan rabnaa marka ugu horeysa inaynu ka jawaabno su'aasha ah hadii ay cuntadu dhacdo oo ay gaadho heerkii ay ku dhacaysay expiry date-keeda ay gaadho maxaa ka dhalan karaya runtii waxyaalaha ka dhalan karaya waxa kamid ah in bakteeriyadii ay hesho chance ay qofka ku dhibaatayso